daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doono munaasabadii xil wareejinta wasiirkii hore wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Nuur Caraale Duur iyo wasiirka cusub ee dhawaan loo magacaabay wasaaraddaasi Mudane Cali Maxamed Waran Cadde. sidoo kale waxaynu daawadayaal barnaamijkan dib ugu eegi doonaa waxqabadkii muddadii wasiirka hore arrimaha gudaha uu xilka wasaaraddaasi hayay, xalintii xaaladihii adkaa, unkidii aasaaskii ciidan culus oo ka dhana argagixisada, fursad siinta dhalinyarada aqoonta leh si ay uga mid noqdaan ciidamada ammaanka, qalabaynta gaadiid guud ahaanba ciidamada ammaanka ee gobolada dalka, iyo gebi ahaanba dadaaladii adkaayo oo adkaysigii waqtiyada iyo marxaladihii istaba yaalay, tirtirkii iyo turxaan bixintii raadadkii tognaa ee ka tagtay doorashadii golaha deegaanku. aan ku horeeya waxaa wasiirkii hore wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Mudane Duur munaasabad la isku arkay iyo meel fagaaro ah madal loo dhan yahay xilka uu ugu tiriyay wasiirka cusub, waxaanuu madashaasi ka jeediyey khudbadii ugu cuslayd ee inta la og yahay abid ka soo yeedha mas-uul laga qaaday xilkii uu madu hayay. alxamdulilah, ilaah baa mahadle. maanta igu simay inaan xilkii qaranka ee aan ummadda u hayay inuu ku wareejiyo walaalkay Cali Maxamed Waran Cadde. ilaah baa mahadda. xil wareejinta waanu dedejinay, waana wasaaraddii ugu ballaadhnayd wasaaradaha la kala bedelay. sababtan u dedejinaynaa waxa weeye mas-uuliyadda ballaadhan ay qaranka u hayso inaanay meel dhexe ku dhicin, ay markiiba mas-uuliyaddu deg deg ugu wareegto cidda qaranka loo igmaday. waayo wasaaraddu waxay haysaa sidaa agaasimaha iyo wasiiradii ugu horreeyeen sheegeen laba adeegoo ballaadhan: amnigii qaranka oo qiimihiisa leh oo aan dhici karin minid qura inaanu mas-uul la-aan amnigii qaranka. waxaa kale oo ay haysaa adeegii gobollada iyo degmooyinka. markaa mas-uuliyad aan sugayn inay meel dhexe taagnaato awgeed ayaanu u dedejinay si mas-uulka cusubi uu ammaanadaa culus ula wareego. waxaan wareejinayaa markaa ammaano culus, waxaan wareejinayaa adeeg culus. amniga qarankuna waa asaaska nolosha dhammaanteed. ilaahay muddadaa aanu joognay nagu asturay ayaa waxaanu ka baryaynaa inuu muddada dambena mas-uulka cusub ee yimi uu ku asturo. amnigu waynu wada leenahay, waa waxaanaynaan ka maarmin. waxba wasaaraddii dub ugu noqon maayo. waxbaa noo qabsoomay, wada jir bay noogu qabsoomeen iyo isku duubni. himil aanu lahayn oo aanu hiigsanaynay in halkii laga qaado oo lasii wadaabay u baahan tahay. haddii aanu wax ka gaabinayna waxaa mas-uulka cusub madaxweynuhu u doortay inuu derdergeliyo oo uu halkii ka dhaqaajiyo oo hawshii ay dee deg deg u socoto. waayaa igu soo maray wasaaradda adag, duruus iyo cibro ayaan kala kulmay, casharaan ka bartay. runtii aad baan ugu faraxsanahay duruusta, aad baan ugu faraxsanahay. waxay igu jirtaa baal dahaba. dacallada Somaliland ilaa bari ilaa galbeed ayaan bulshada degtay, cid walba hor fadhiistay anoo nabad iyo wanaag doonaya. casharaan ka bartay ii dhaxal noqon doona. alxamdulilah, ilaahay baan ku mahadinaya. waxay dhaxal siisaan idiin sheegayaa. waxay dhaxal siisay inaan nabadda dhowro oo nabad dhowre noqdo. waxay dhaxal siisay inaan danta dhowro. waxay dhaxal siisay inaan mas-uulka dhowro, ciduu yahayba inaan mas-uulka dhowro. waxaan xusi lahaa gabaygii allah u naxariistay Ibraahim Garle. wuxuu yidhi dantu waa wax khafiife yaan la qoomin sibraarka, waa quraaro jabaysay qaare yaan lagu jiid. dantu wuxuu muujinayaa inay khafiif tahay. adeegaha danta guudna wuxuu ilaalinayaa wax khafiifa. markaa waa nugul, waa qof nugul oo nabarrada iyo laakiin qofka tuuraya ee shiidaya danta guud ee dhaawacaya weeraraya ma oga nugulka ay danta guud tahay. waxaa dheer intaa, dantu waa quraarado way jabaysa, in la dhowraabay u baahantay. qaranka Somalilandna waa qaran daciifa. 22 sannadood buu soo jiray, laakiin weli halku doonayay ma gaadhin. muddadaa dheere weli waa raadbarad, dhaqaaluhuna waa qadhiidh, waa wax yarba wax lagu wadaa. marka adeegaha dantaa guud ee mas-uuliyadda intaa leeg ilaalinaya in loogu duceeyo la yidhaha allaha ku astura mooye tuurtuur uma baahna. waxaynu barannay in hadba cidda degtaa ay fariidadii tahay, cidda joogtaana aabbahood naari yahay. waxaan idinka codsanayaa
inuu fariidkii ka jooga noqdo aanu kii tagay noqon inuu fariidkii iyo kii taageerada u baahnaa iyo kii toosinta u baahnaa iyo kii garabgalka u baahnaa inuu mas-uulka jooga noqdo oo aynu ugu ducayno in ilaahay xilka ku asturo guul darrada adeegayaasha danta guud oo ah mas-uuliyiinta qaranka guul darradoodu waa guul darrada qarankan fashilkoodu waa fashilka qarankan ummaddana waxay ka sugayaan taageero laakiin waxaan runtii qirayaa shacabka reer somaliland inay shacab wanaagsan ay ahaayeen way khalad waa jiraa waxyaabo way nagu soo baxeen duruusi way dhacday qabyaaladii baa dub u soo kacday doorashadii baa carisay ilaa ciyaari bay gaadhay waa wax aada loola yaabo waxay u baahan tahay inaynu ka howlgallo somaliland waxbay hiigsanaysa adduunyadaa wax kaga maqan yihiin ma midnibay ku helaysaa mise beelbeelo maca qaar bay ku helaysaa mise waa qof soomaali baynu wax la lahayno waynu ka tagnay markaasaynu isa sii kala guraynaa ilaa aynu rubc u goono sideebaa himiladeennu u gaadhaysaa mas-uul kasta oo yimaada waxaynu jiidaynaa lugta yaa inoo imanaya hawsha qaadaya ee himiladeenna ka midho dhalinaya waxaan soo jeedinayaa shacabkayga wanaagsan in la taageero hadba mas-uuliyadda cidda haysa waxaan u mahadnaqayaa madashan shacabka reer somaliland guud ahaan waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa ciidamada kala duwan ee danta iyo daciifka iyo duruufta ku samray ee nabadda ilaaliya nabaddu waa wax qiimo weyn waa ta shacabkan oo dhani uu ku koray shacabkan oo dhan baa ku koray dhaqaalaha ku koray jiritaankaa ku koray wasaaradduna waa wasaaraddii amniga ilaah baan ugu mahadinayaa inaan maanta xilkii tiriyo walaalkay cali u tiriyo culays baa jiray shalay waxaa la iga rabay mas-uuliyadda iyo amniga qarankoo dhan maantana anaa mas-uuliyadayda cali u daba fadhiya tayda gaarka amnigayga mas-uuliyadaydaan cali u daba fadhiyaa culays baa iga degay xilka qaranka mas-uuliyadda iyo ammaanada ugu culus ummaddu waxay u igmatay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland madaxweynuhuna celceliyayaal wasiirada u horeeyaan ayuu xilka u dhiibtay celceliyayaasha in maalinba meesiga nin ka adag lagu dayo waa sunnaha dowladnimada shalay madaxweynaha waxaan uga mahadnaqayaa inuu igu dayay meesigii ugu cuslaa anigoon codsan oon cidii goobin aad baan uga mahadnaqaya maantana inuu mas-uulkaa ku dayo oo lagu eego inuu isna bal meesigii celiyo cuslaa aad bay sharaf u tahay waana sunnaha dowladnimo madaxweynaha waan uga mahadnaqay warbaahintana waan u marinayaa inaan maanta inta nasatay ku biiro waxaan ku biirayaa bulshada nabadda jecel ee qarankooda dusha ka ilaashata hadday filayeen maanta layga filaayay inaan matagoon sidii nin caraysan u hadlo cidda intaa iga sugaysa raalli ahaa cidda intaa iga sugaysay wallaahi qalbigayga farxad baa ka buuxda xilkana ammaanaan u aqaanaa ammaanadana waxaan u aqaanaa ama allah inuu kaa tariyo ama adigii ku dhibtay da inuu kaa kaxaysto miyaana intaa mudnayn waa intaasu alxamdulilaahi rabbilcaalamiin muddaanu xilka haynay ilaahay baa nagu asturay waxaanu garab taagnaan doonaa mas-uuliyiinta cusub madaxweynaha xilka qaadistaydii iyo mas-uuliyadaydii waxa cuslayd markuu ii dhiibay baa cuslayd maanta way fududda waayo dee culayska intaa leeg baan xambaartay laakiin maantana anaa taydii cali ka daba soogeeyo oo eegaya intaasay isu jirtaa runtii farqigaa waa ku raaxaysanaynaa madaxweynaha waan uga hambalyeynayaa waan uga mahadnaqayaa qarankani waa qarankii aan dhistay waa qarankii aan u soo ololeeyey waa qarankii guulaystay waa qarankaa maanta xilkii ummadda haya waa qarankan shalay taageersanaa markan xilka hayayna aan taageersanaa markan ka tagana waan taageersanaan doona waxaan uga mahad celinayaa wasiirkii hore sida wanaagsan ee uu gutay shaqadiisa waxaa kaloo halkan uga mahad celinayaa shaqaalaha wasaaradda oo runtii inay wanaagsan yihiin aan ku gartay markay wasiirkoodii ka tegayey ay shahaado sharaf ku sagootiyeen waxaanu arki jirnay qaar siica yidhaahdo imaanka waar waxaa naga tegay haddii taasi waxay igu dhiirigelinaysaa inaan aamino shaqaalahaygu inay yihiin shaqaalo runtii aad iyo aad u qiimo badan sida la sheegay wasaaraddu waa wasaarad ballaadhan aad iyo aad bay u ballaadhantay
waxa dhinacaygan fadhiya dhowr generaal baa fadhiya waxa fadhiya barasaabo fara badan waxa fadhiya maayaro fara badan waxa fadhiya madax dhaqameedkii iyo salaadiintii waxay taas ina tusaysaa oo muxuu ahay jannadu ay qaarkood yihiin ciidamadii badda qaarna ciidamadii dhulka waxaan bay naga maqan marmaya kiiba muxuu ahay cirka ayay naga maqan haddaanu immigration wixii soo degay su'aalkiisa aanu gelin iyaga ka wakiil wixii soo degay waxaan jeclahay halkan inaan ka jeediyo in yar oo war ah xilkan uu madaxweynuhu iigmaday sida aan idin sheegay waa xil aad iyo aad u ballaaran oo si toos ah u saameynaya bulshada reer Soomaaliland waxaan doonayaa oo runtii halkan aan jeclahay inaan ka sheego inaan u mahadnaqo madaxweynaha ii gartay xilka ballaaran inaan la garab galo oo aan ku gacan qabto oo aan kala shaqeeyo si dalkeena aan ugu hogaamino nabad iyo deganaan iyo xasilooni iyo bashbash iyo barwaaqo waxaan jeclahay maadaama la ii doortay xilkan inaan shacabka u adeego ana inaan shacabka laba arrimood maanta halkan uga muujiyo waxaan idinku ballan qaadaya inaan idinku shaqayn doono si xilkasnimo cadaalad iyo sinaan leh oo ay iga heli kartaan saddexda arrimood waxaan idin ilaalin doonaa wax kasta oo waxaan ka ilaalin doonaa bulshada wax kasta oo kala fogeyn kara bulshada reer Soomaaliland sida eexda qabyaaladda iyo nin jeclaysiga waxaynu u baahannahay inaynu dhexdeena ka abuuro jawi iskaashi wada tashi iyo is-aamin ku dheehan yahay si loo helo shacbi wada jira oo ka qayb qaadan kara horumarinta dalkooda iyo xaqiijinta himilada dalka Soomaaliland oo ah inaynu gaarno qaran madax bannaan oo caalamka mid ah waxaan doonayaa inaan ka hadlo dhowr arrimood ta ugu horreysa waxa weeye arrimaha bulshada waxaan ka hadli doonaa in bulshadu ay u baahan tahay in la kolkooliyo la ilaaliyo nabadooda la dhowro si dhuglana loogu feejignaado waxaanu dhowri doonaa haddii alla yidhaahdo xorriyatul qowlka haddaanu nahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland arrimaha gudaha ee Soomaaliland waxaanu dhowri doonaa madax bannaanida saxaafadda waxaanu dhowri doonaa haddii alla yidhaahdo xuquuqul insaanka waxaanu si ballaaran uga hortagi doonaa dhaqan xumada ay dadka wax magaratada ahi wadaan ee ay ku dibindaabiyeen bulshada reer Soomaaliland khaas ahaan cudurrada cusub ee imika ku soo baxay magaalooyinka ee habeenkii dumarka iyo maatida iyo muxuu ahay dadka waayeelka ah dhalinyaro xilma kasta ah ay isu taagaan meelaha madowga ah munaasabadaasi kadib waxaa wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu iyo wasiirkii hore ay cagta soo dhigeen xarunta guud ee wasaaradda arrimaha gudaha aasaaskeedana uu lahaa wasiirkii hore ee wasaaraddaasi taasoo weli dhismaheedu socdo sanadii 2011 ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo digreeto ugu magacaabay jagada wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Nuur Caraale Duur kadib markii uu xilkaasi ka tagay wasiirkii hore wasaaraddaasi Dr. Maxamed Cabdi Kaboose xilligaas waxa wasiir Duur ahaa mudane la soo doortay oo ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliland
waxaanu ka soo baxay xisbigii burburay ee udub ee uu guddoomiyaha ka ahaa madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin. waqtigii golaha wakiilada Somaliland mudanayaasha shacabku soo doorteen waxa wasiir duul xilligaasi ahaa xubinta ugu firfircoon uguna codka dheer golaha, isla markaasina xisbul xaakimka talada hayay waqtigaasi waa udube ay ku dhaataan. kadib markii wasiir duul si rasmi ah ula wareegay xilka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiir duul waxa uu xilligaasi ku soo beegmay xilli wasaaradda arrimaha gudaha ay dul hoganayaan dhaliilo fara badan oo la halmaala ammaanka dalka, xaaladda xeebaha cidhifyada dalka, colaado beelaysan oo iyana muddo dheerba ka dhex caloosnaa qaar ka mida beelaha walaalaha ee wadadega Somaliland. bulshadu waxay si xoogan isha ugu hayeen magacaabidda xilligaasi wasiir duul iyo sida uu u waajihi doono xaaladaha isbarkan ee isaga horyaalay. muddo kooban kadib waxaa magaalo madaxda gobolka Sanaag Ceergaabo colaad xoogan ka dhex qaraxday laba beelood oo ka mida beelaha wadadega gobolkaasi, taasoo ka dhalatay dilal aano qabiil oo soo taxnaa ilaa sanadii 2007. waxaa labada dhinac dhibaatadu dhextiil ilaa waqtiga u caalwaayay xalinteeda mas-uuliyiin fara badan oo intooda badan jagada arrimaha gudaha soo hayay ee xukuumadii hore xisbigii udub iyo weliba xisbiga haatan talada haya ee Kulmiye. waxaa kaloo iyana hungo iyo faramaran xalinta xaaladaasi kala soo laabtay mas-uuliyiin fara badan oo iyaguna gobolkaasi kasoo jeeday. xaaladda labadaasi beelood oo marba marka kasii dambeysay sii xumaanaysay waxay gaadhay in dhinac waliba dhanka kale ka toogto haldoorkiiyo kii waxgarad ah amaba xilhaya. dilalka iyo is-ugaarsiga labada dhinac intiisa badan toogashadu waxay ahayd mid la isla beegsado hadhcad iyo sharciyada magaalada gudaheeda, waxayna xaaladdu isu bedeshay ciidan beeleedyo dhinac waliba magaalada uu dhex keeno, cid kastina cabsi bay ku noolayd. arrintani waxay noqotay midii ugu horeysay ee wasiirkii hore wasaaradda arrimaha guduhu xalinteeda uu ku guuleysto, waxaanu noqday mas-uulkii u horeeyay ee xal u helay xaaladaasi. waxaana wasiirku arrintaasi u soo afjaray daawadayaal sida tan. nabadda waynu kula dagaalamaynaa. nabaddarrada ragga weli cadhaysan ee ay wejigooda ka muuqato inay weli baahidii kabaano miirsada shaydaanka iska naara wataa magaaladii nimcadii ilaahay ka kufriday dabadeedna meel walba askari baan geliyey. waxaan idinka codsanayaa intanu hawshaa ku jiro ninoona qori dabadda hala marin. ciidamada qaranku waxay amar ku qabaan qofka qoriga sita qabta oo xidha, qorigana ka qaada, hadduu ku dagaalamo ku dila. soo maqli maysaan? ciidamada qaranku waxaa amar ku qabtaan ninka nabadda diida ee isagoo shiciba qori suuqa la maraya, amar waxa ku qabtaan inay dishaan oo ay ku dishaan nabadda. kadib kolkii wasiirku arrintaasi ka soo farxashay waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa. maalmo gudahood kolkuu damay dabkii bari waxa haddana dab colaadeed oo beelaysani ka hilaacay cidhifka galbeedka dalka. dilal toogasho wadar iyo waaxid bale jidgooyooyin dad musaafiriina mir habeenimo la laayay. xaaladan oo iyana sanado badan soo taxnayd cid kalena u taag weyday waxaa mar kale madaxweynaha Somaliland u igmaday wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Mudane Duur. suurtagelinta nabad lagu samaado iyo saxal saarka deegaanka Soomaal dhibaatada dhex taalay dadka wadadega ayaa madaxweynaha Somaliland mar kale u igmaday wasiirkii hore wasaaraddaasi. xalintan xaaladan oo halkii ugu xumeed iyaduna markaasi maraysay oo mugdiga colaaduna meel kastaba gaadhay waxa wasiirku durtadiiba feejignaan ku waajahay halkii dhibaatadu kol kastaba kaalmad iyo ka helaysa gacanta.
waxaana taasi sababtay cid kastoo arrintaasi ku lug yeelataba in tallaabo buuxda laga qaaday markiiba. mas-uuliyiin dhowra waxaa laga xayuubiyey xilkii ay ummadda u hayeen kadib kolkii lagu helay inay lug ku lahaayeen arrintaasi, halka kuwo kalena lagu qaaday xabsiga iyo in xilkii laga qaado. arrintaasi guure iyo garab carrow kadib waxa uu wasiirku xalinteeda u haleelay isla markaasina qaadsiiyey tubkiiyo toobiyihii uu hore u qaadsiiyey xaaladii xarunta gobolka Sanaag Ceerigaabo. dejinta, damdaminta iyo dabka labada daraf dabadood waxa wasiirka arrimaha guduhu gudagalay sidii uu kor ugu qaadi lahaa amniga guud iyo kan gaar ahaaneedba, waxaana uu kor qaadid iyo tayin buuxda ku sameeyey dhammaanba ciidamada ammaanka isagoo la kaashanayay hay-adaha caalamiga ah ee Somaliland ka gacan siiya dhinaca ciidamada ammaanka. sidoo kalena ciidamada socdaalka waa immigration-ka dhismo baaxad weyn oo ah kan ugu weyn ee xarumaha dowladda ayuu dhagax dhigay, muddo koobanna la dhammaystiray. kadib waxaa si xoogan loogu qalabeeyey ciidamada immigration-ka xaruntaasi aaladihii ugu dambeeyey heer caalami loogu talagalay ciidamada socdaalka. intaasi kadib mudane Duur wuxuu noqday wasiirkii u horreeyey ee hirgeliya in dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxday iyo kuwa dhammaystay dugsiyada sareba wiilal iyo hablaba lagu soo kordhiyo ciidamada ammaanka. boqolaal iyo boqolaal ayaa laga soo xulay gobolada dalkoo idil, kuwaasoo uu si toosa ugu diray dugsiga tababarada ee ciidamada Mandera. tan iyo sanadii 90-aadkii qof kastoo ciidanka la qorayaba waxaa shardi ahayd inuu qorigiisa la yimaado. waxaa wasiir Duur noqday mas-uulkii u horreeyey ee soo maray wasaaraddaasi suurtana geliya in dowladdu dhalinyarada faraha badan ee markii u horreysay ciidamada ammaanka lagu soo kordhiyey hubka siiso, meeshana ay ka baxdo hal lagu qoray qorigaaga doono. mudane madaxweyne, tirada ciidanka iyo tayadiisuba dubeegis bay rabaan, dubuqaabeyn bay rabaan, dadaal bay naga rabaan. intii lagu daray waa lagu daray, inta dhimanina waa intaynu karayno. intii aynu karayno tallaabo leeg baynu sanad walba qaadaynaa si aynu u dhisano ciidan adag oo amnigiisa lagu kalsoonaado, iyagoo maanta dadaalkaa wada jirka ana kaga midha dhaliyey amni aynu maanta ku noolahay. intaasi kadib waxaa wasiir Duur culayska saaray sidii uu u hirgelin lahaa ciidamo ammaan oo ku qalabaysan aqoonta kamaandoosta una tababaran ka hortagidda iyo la dagaalanka argagixisada. ciidankaasi oo dadaal dheer kadib u suurtagalay mudane Duur ciidamada adag ee RRU-du waana kuwan iyagoo daawadayaal howlgallo ku jira, isla markaasina qaarkoodna ay tababaro ku qaadanayaan dugsiga Mandera. tababaradaasoo ahaa mid u gaar ah keligood una gooniya ayna bixinayeen saraakiil caddaan ah oo u dhashay wadamada ugu awooda badan kuwa loogu yeedho reer galbeedka. dadaaladaasi istaba joogga ahi waxay sababeen inuu mudane Duur ku suntanaado mas-uulkii ugu dadaalka badnaa ee soo maray wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha. sidoo kalena waxa uu noqday saaxiibka dhow ee madaxda dhaqanka iyo cid kastoo mas-uul ahba.